shir looga hadlayay isbedelka cimilada iyo deegaanka uu soo agaasimay xafiiska agaasinka bay-ada isbedelka cimilada climate change-ga xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socota gobolka banaadir ururada bulshada rayidka ah iyo xafiiska agaasinka bay-ada iyo isbedelka cimilada climate change-ga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. shirka ayaa lagu gorfeeyay heshiiska kumeel gaarka ee dowladda Soomaaliya ay saxiixday ee isbedelka cimilada climate change-ga. agaasimaha guud ee xafiiska bay-ada iyo isbedelka cimilada climate change-ga Axmed Yuusuf Axmed ayaa sharaxay heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya ay gaartay ee hore loo saxiixay ee la xiriira ilaalinta dahaarka sare ee hawada ozonka, waxaana sidoo kale uu xusay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka uu saameeyay isbedelka cimilada ee dhibaatada ba'an ay u geysatay abaaraha joogtada ah, fatahaadaha iyo sidoo kale daadadka. kulankani wuxuu daba socdaa kulamo hore oo la xiriira hirgelinta heshiiska Montreal Protocol kaas oo ku saabsan kaas dowladda Soomaaliya ay saxiixday 2001 heshiiskan haddaan background yar dib ugu noqdo heshiiskan waxaa ku jira adduunka oo dhan dowladda adduunka oo dhan baa ku jira wuxuuna leeyahay heerar kala duwan ama qaabab kala duwan oo loo fuliyo waxaana laga bedelaa markii dhowr sano la joogaba oo waa la hormariyaa. hadda marka waxaa jira amendment in lagu sameynayo amendment marka si loogu sameeyo waa in laga sameeyaa dal kasta oo sameeyaa wada xaajood ama consultation ku saabsan dalka gudihiisa dhammaan cid ay khusayso. Montreal Protocol wuxuu ku saabsan yahay waa heshiis loogu talagalay in lagu ilaaliyo dahaarka sare ee hawada kaas oo ay dhibaato u geystaaneen gaasaska ama wasakhowga ka soo baxaya baabuurta iyo gaasaska aynu isticmaalnay sida AC-yada. marka qiica iyo wasakhda ka imaanaysa waxay u geysanaysaa dhibaato si marka dhibaatada looga hortago waa in la sameeyaa waxyaabo badan oo sidii loo control lahaa qiicada iyo wasakhda ka soo baxaya gaasaska. agaasimaha bay-ada xafiiska garyaqaanka guud Maxamed Salaad Xasan iyo agaasimaha bay-ada iyo isbedelka deegaanka gobolka Banaadir Dr. Cabdullaahi Nuune ayaa ka hadleen wasakhowga deegaanka iyo saameynta isbedelka cimilada iyo walaaca abaaraha joogtada ah ee Soomaaliya ee ka jira. heshiiskan muhiimaddu uu leeyahay wax yar ku noqdo waxaa tusaale loo soo qaataa ama si guud marka laga hadlaa heshiisyada ku saabsan maxaa la cimilada heshiiska ugu successful ama maxaa la hayay ugu horumarsan oo adduunku isku raaco 196 wadan ee saxiixday. sidaan ognahay isbedelka cimiladu wuxuu saameyn ku leeyahay aadanaha Soomaaliya. hadda waxaad aragtaan in isbedelka cimilada uu dhib badan u keensada dhinaca roobabkii iyo isbedelkii cimilada. ozone layer-kan waa qayb ka mid ah isbedelka cimilada. waa layer ilaahay noo sameeyay oo ugu talagalay inuu naga celiyo falaaraha ilayska qorraxda, taas oo hadduu soo gudbo uu noo keenaya khataro badan oo dhinaca caafimaadka maqaarka ah. isbedelka cimilada ayaa Soomaaliya ka mid tahay wadamada uu saameynta ku yeeshay, waxaana jira dhibaatooyin la xiriira isbedelka cimilada. Leyla Cadaad Ismaan, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.